dhammaan soo dhawaada waa madal kale oo kamida madalaha billaha ah ee xarunta hadaf xarunta cilmi baaridda iyo horumarinta hadaf kulankan waa kulamadii hadal jeedinta ah kii 19aad xarunta qabato ciwaanka kulankan wuxuu ahaa bulshada iyo warbaahinta ujeedaduna waxay ahayd in laga hadlo laba qodob oo ah kaalinta warbaahintu ku leedahay wacyiga bulshada iyo kaalinta ay warbaahintu ka qaadan karto jihaynta iyo saameynta siyaasadda iyo maamulka akhyaarta kulanka ku caasan dhamaan waa soo dhaweynaynaa inta madasha fadhida iyo inta zoomka kaga qayb galaysa waxaan soo dhaweynaynaa gudoomiyaha warbaahinta Puntland gudoomiyaha warbaahinta Puntland Maxamed Daahir Caynsane gudoomiyaha Maxamed Daahir Caynsane oo soo dhaweynaynaa waxaan soo dhaweynaynaa qaadi Cabdiqaadir Ismaaciil oo qoraa aqoonyahan ah oo kelmad ra'iisiga kulanka waxaan soo dhaweynaynaa professor Sheikh Ali waxaan soo dhaweynaynaa akhyaarta kale ee madasha ka soo qayb gashay aqoonyahanka macallimiinta jaamacadaha ardayda akhyaarta kale guddisan ee barnaamijka soo jeedinaysa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa dareenkaas iyo baahida uu qofku u qabo in uu la xiriiro dunida kale to hadba si ayaa lagu xiriirayay oo waxay soo mareysay marxalado kala gedisan waxa jiray mar ay xooganayd suugaanta tusaale ahaan xiliyadii nabi maxamed cali sallallahu alayhi wasallam la soo saarayay wax xooganayd suugaanta waxay lahayd saameyn aad iyo aad u ballaaran hal shicir ama hal gabay oo qof tiriyo ama tix la tiriyay ayaa waxay bedelaysay bulsho dhan dhinaca ay u socoto ayay ka bedelaysay oo dhinac kale ayay u leexinaysay markii la qiimeeyo heerka ay joogto oo ay wax ku xisaabinayeen dabaqad koowaad iyo dabaqad labaad ay ku kala xisaabinayeen mid dabaqad koowaad dabaqad labaad joogta ayaa tix loo tiriyay waxa ay ka dhigaysay dabaqad koowaad marka marba waxba soconayay Soomaalida oo ahayd bulsho aan wax qorin waxna aqriin wararkana isugu gudbiya suugaan inteeda badan saameyn ayuu ku lahaa suugaantu oo waxaan arkaynaa marka laga hadlayo taariikhdeena iyo sooyaalkeena inta u badan waa inta lagu xifdiyay suugaanta ama gabayaha ahaato geeraar ha ahaato mahmaho iyo murti ha ahaato waxyaabaha aynu haysano waxyaabihii lagu xifdiyay suugaanta kamid ah waxa kaloo jira marka haddii bini aadamku uu baahi badan u qabo marka inuu wada xidhiidho xilligan waxa ugu saameynta badan waxa ay noqotay waa warbaahinta Soomaalidii horena war ku qiimo lahaayo waxay oran jireen warba ugu baahi kulul waa bulshadeenu waa bulsho wareed haddana wax loo helay qalab warbaahintu iyadoo caalamka saameyn guud ku leh ayay dadka Soomaaliyeedna waxay ku leedahay saameyn aad u ballaaran mar haddii guri walba ay gaadhay oo waayeelkii ay daawanayaan oo dhalinyaradii ay dhageysanayaan oo aanay hawl badan u baahnayn waxay u baahan tahay inay ka qayb qaadato wacyiga bulshada taasoo aan ugu jeedno dareenka qofka iyo fikirkiisa in la kobciyo garaadkiisana kor loo qaado ayna noqoto warbaahinteenu mid ku mashquulsan sidii qofkan wax looga bedeli lahaa ee muhiimadu aanay noqon war uun ha loo sheego haddaba si taa loo gaadho waxaan rabnaa in warbaahinteenu ay tixgeliso qodobada soo socda qodobka koowaad aan isleeyahay wuxuu muhiim u yahay in warbaahintu ay tixgeliso asaasna uu u noqdo waxa aan oran lahaa horta waa inay leedahay ujeeddo cad maxaa loo sameeyay maxay tahay sababka warbaahinta loo sameeyay ujeedadeedu waa inay cad tahay waana inay ka duulaysaa haybta qofka muslimka ah inaga waxaan leenahay haybteenu waa islaamnimo waxyaabo badan baan la soocanahay marka laga hadlayo hayb sooca waxa la yiraahdaa wax asal u ah toddoba waxyaalood markaan Soomaalinahay haybteena wax asal u ah diinteena waa diinta islaamka sida darteed warbaahinteenu waa inaanay faafin waxyaabaha anshax xumada ah hatta hadii uu dhaco waa inaan lagu celcelin wax jira dhaqan iyo dhacdo marka laga hadlayo Soomaaliga waxa jira dhaqan iyo dhacdo dhaqan waa wixii wanaagsan ee la soo kala dhaxlay ee soo jiraayay ee ummadu ay wax isugu tabinaysay guurkii baa kamida martisoorkii baa kamida waa dhaqan fiican oo aynu leenahay Soomaha dhacdooyinku wax weeye wax mar dhacaya
oo dhaqanka khilaafsan uma baahna marka in la buunbuuniyo waxay u baahan tahay in aan halkeeda lagu dhaafo oo sheegu waa ugu daraya wixii xun ee dhaca waa inaan aad loo buunbuunin oo loo qaadqaadin maxay Soomaalidu oran jirtay iyadoo arrinka u jeeda wariyo weydba wadwadku waa uga daraa warka loo jeedaa waa warka aan haboonayn wadwadku waa uga daraya ceeb un baa looga sii dhacaya marka waa in qofku uu yaqaanaa wariyaha haybtiisa oo diintiisa waxyaabaha ku xun uu iska ilaalinaya dhaqankiisa waxyaabaha ku xun iska ilaalinaya taariikhdiisa uu garanaya ummad baan nahay Soomaali baan nahay taariikh fac weyn baan leenahay xadaarada hore ayaan lahayn bulshooyin kala duduwan baan la xiriiri jiray habbaan isu soo maamuli jirnay waxaan lahayn dhaqan iyo hab taariikheed isimo xukuma deegaamadooda kuwaasoo bulshada wax ku leh bulshaduna ay wax ku leedahay habka waxa uu wax ku maamulayo bulshada ayaa keenaysay ama hala yiraahdo ammaan deegaankeenan ammaan baa laga yiraahdaa deegaamada kale sado iyo deegaamada laga yiraahdaa waa waxa loo keeno qofka meesha madaxda ka ah ee la rabay inuu isaga bulshada ku maamulo maadaama aan cashuur la qaadayn waa taariikh soo jireen oo ummadani ay lahayd oo u baahan in loo dhowro oo loo ilaaliyo lagana fikiro waxa kamid ah waxyaabaha ummadani ay wadaagtay u baahan in la ilaaliyo waa afka ama luqadda oo maanta weerar weyn lagu hayo luqadda Soomaaliga ama afka Soomaaliga waxyaabihii ka qayb qaatay waxay yiraahdaan dhowr xeelood baa ugu muhiimsanaa waxa kamid ah culimada wax la qabaysa oo intii ay af Carabiga eraya Soomaaliya u raadiyeen dadka sidaa ku baray oo u laqbayn jiray waxa kale kamid ah dadka Suugaanyahanka oo maansooyinkooda waxyaabahaas ku soo bandhigi jiray luqadda iyo qiimaheeda iyo hadba erayada ku haboon waxa kale kamid ah xilliyada ay soo baxday wariyaashii Soomaaliya waxyaabo badan ku soo biiriyay afka Soomaaliga laakiin maanta mahma qoliyaha reer Koonfur Galbeed Soomaaliya ay adeegsadaan afkoodii baanan ku oran karayn laakiin keenan ku oranayaa baa macnaheedu wuxuu ahaa ilaahu xoolaha adiga ay siiyay adigu baan kaaga baqaya waa dhab xoolaha ilaah baa ku siiya laakiin inay ka burburaan hadana macaasiya markaad geeyso ilaah baa ka burburin kara hadii ay ka qayb qaadatay marka warbaahintu dhisidda afka hadana in ay afka Soomaaliga dhowritaankiisa meel uga dhacdo qayb weyn ayay ka tahay iyadoo erayada la adeegsanayo aan loo miidaandeeyay marka waxay u baahan tahay in loo ilaaliyo ummadda afkeedii waxay u baahan tahay dareenka Soomaalinimo in la ilaaliyo oo waxyaabaha keenaya ma xoojinaya dareenka Soomaalinimo hadiyo jeer wariyaha ay tahay hab dhaqankiisa oo ku baraarugsan yahay wax kale oo kamid ah waxyaabaha haybteena aan gaar kala nahay dhul baan leenahay waa dhul Soomaaliyeed dhulka Soomaaliyeed baa la yiraahdaa dadkeeduna waa Soomaali waxa arkaysaa iyadoo la leeyahay dhulka Soomaalidu degto yaale marka dhulkeena indagaale dhulka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed waa isleeyihiin waa in qofku uu yaqiinsan yahay oo warbaahinta laga rabaa inay ka shaqeyso wadajirka ummadda Soomaaliyeed oo ah waxa Carabiga lagu yiraahdo juz'un la yatajazza juz aan sinaba u qaybsami karin oo sinaba aan loo kala googooyn karin waana inuu wariyuhu iska ilaaliyo waxa laale iyo wixii wiiqaya midnimada iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed wixii wiiqaya waa inuu iska ilaaliyo mararka qaybtooda waxaad arkaysaa wariye ay iska hor imanayso hadda wuxuu ka hadlayay wax Soomaalinimada dan u ah haddana warka xigana waxa arkaysaa kaamilkiisa inuu sii daadi inuu markay u diyaar garoobayo waxaan rabnaa in uu ka faa'iideysto wariyuhu iyo warbaahintu duruuf kasta iyo xaalad kasta ay ku jirto in ay gudato sidii wacyiga dadka ay u dhisi lahayd wax jira qisas iyo dhacdooyin tira badan laakiin waxaan soo qaadanayaa hal qiso sida aan wada ognahay suuratul Yuusuf oo waxyaabo badan ay ku jiraan oo u baahan in muhaadaraad aad u badan laga diyaariyo markii uu xabsiga galay calayhi salaam laba wiil ba xabsiga la soo galay labadii wiil waxay u keeneen riyo dabadeetana waxay yiraahdeen riyada noo fasir nabiyullaahi Yuusuf halkee buu iska taagay waxa uu yiri qaala laa ya'tikuma ta'aamun turzaqanihi illa naba'tukuma bi ta'wilihi
قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون وحاويري كو هرت وحا عاد ربطان وان إذين شيء إذين ما تمادو ريال كما ريوتان أما ما أركتان حدي أدري أركتان انت أنا يدعين بانفصل كذا ما يصير أنا نسينيا سيدا أنا يكون فصلوا بينهم عيسى حسي شيء انتاسي وعاد بيورياش استعمالانو ووركب مدحديسي اما وانت يرى وباهن ان قفكا لا سيو ان درينكيس لا هانتو inamadii waxa uu hantay dareenkoodii baahidoodii buu uga jawaabay laakiin wali riyadii uma fasirin waxa uu rabaa inuu dhiso wacyigooda marka muhiimadda bini aadamka loo abuuray iyo waxa la rabo in ay gutaan iyo risaaladan uu xambaarsan yahay ee loo soo diri doono faanka wali nabi ma aha laakiin waa la diyaarinaya in uu tusiyo ayuu rabaa oo uu baro markaasuu de sharaxaada dheersiiyey ilaa uu u sheego ma ilaahay ba hal ilaahin la caabudo iyo ilaahyo kala duwan in la caabudo iyo ma khayr badan marka waxa la rabaa wariyuhu inuu ka faa'iideysto fursadaha una uga faa'iideysto mawduuca hadda aan joogno ee ah wacyi dhiska bulshada fursadaha wax la yiraahdaa mid kamida maalqabeennada caalamka ayaa gabadh wariyi wareysanaysay waxaan soo qaadanayaa fursadda inaan la dayicin dabadeetana waxay weydiisay tijaaradaada iyo ganacsigaaga maxaa gaarsiiyay heerka inta uu gaaray aad ka mid noqoto dadka aad ugu maalqabeensan dunida dabadeetana wuxuu soo saaray jeegiisii wuxuu yiri lacagtaad rabta ku qoro gabadhii wax xishato waxay tiri waad mahadsan tahay isla markiiba jeegiisii buu la noqday 1 milyan haddii aad ku qoran lahayd buu yiri waad yeelan lahayd fursadaadii baad dayacday weligay fursadayda ma dayaco weligay fursadaan leeyahay ma dayicin jaaniska marka soo maraana way adag tahay mar labaad inuu ku soo maro marka waxaan rabnaa in aan warbaahinteena fursadaha ina soo maraya ee wacyi dhiska bulshada aan uga faa'iideysano waxa kale qodobada muhiimka ah ee la rabo in la ogaado kamida in bulshada loo gudbiyo warar sugan wararka aan siinayna waa inaanay ahayn ku tiri kuteen marka laga hadlayo dhaqankiisa jireenka ah ee Soomaaliga iyaga warka aad baahi u qabay haddana hababka wararka ay isugu gudbiyaan waxay ahaayeen mid sugan oo run ah ma jirin qof warka been ka sheega haddii ay dhacdo qof warka been ka sheega waxa uu noqon jiray qof bulshada ka takooran oo aan la dhageysan sidaa darteed baa xataa ninka beenta yaqaana marka uu waramayo uu isaga ilaalin jiray inuu been sheego carabtuna waxay dhaqan u leedahay mahmaaha iradaan raa'idul qawmi la yakdib qolo ninka ay sahanka u diratay been uma sheego waa sahan warbaahintu maanta waa sahankii ummadda waa horseedkii ummadda sidaa darteed waa inaanay u sheegin wax beena waxyaabaha aan rabno inaynu bulshadeena u soo gudbino wararkaas sugan baa kamid ah waxa kale oo kamid ah wariyaha iyo warbaahintuba inay ku baraarugsan yihiin khataraha ka iman kara warbixinada ay bixinayaan ama saameynta taban ee ay yeelanayaan war baad maqashay warkani ma yahay kii ku habboonaa in la gudbiyo mise ma aha waxaan tusaale u soo qaadanaya la wada dareemi karo xilli ayaa Afrika waxa ka bilowday khaasatan Afrikada bari xanuun la yiraahdo Rift Valley xanuunkaas isagoo Soomaaliya aan soo gaarin ayaa nin dhakhtar BBC-da la hadlay wuxuu yiri waxaanu haynaa xanuunkii Rift Valley calaamadihiisi ayaan Soomaaliya ku haynaa maxay sababtay sagaashameeyadii bay ahayd waxay sababtay xilliga dawladda Soomaaliya ay burburtay in ishii dhaqaalaheena kow ku tirsanaa ee ahaa adhigii xoolihii noolaa ee aan Sacuudiga u dhoofin jiray in Sacuudiga yarada Soomaaliya Rift Valley baa ku dhiftay sanawaad badan in adhigeennii xoolaheennii ay xidhmaan dhaqaalaha Soomaaliduna uu dhulka galo oo aad u wiiqmo marka warka aad gudbinaysaa wax laga yaabaa inuu dhibaato badan ku keeno isagoo jiraba waa in la iska hubiyaa wixii waray la gudbinayo waxa kale oo muhiim ah in ay taqaano kala mudnaansiinta wararka warkani waaba jiraaye ma yahay mid hadda ku habboon in la gudbiyo mise ma aha nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam Aisha ayuu la hadlayaa wuxuu leeyahay Aishoy
haddii dadkaagu aanay ku sugnayn soo islaamidu aanay ku cusbayn kacbada intaan dumiyo ayaa waxaan geyn lahaa halkii nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam uu geeyey laakiin waxaan ka baqayaa inay yiraahdaan taariikhdayadii baa lala dagaalamaya oy dib u noqdaan oy fidnoobaan marka wararkaaga waa inaanay noqon warar lagu fidnoobi karo mid kale wax walba loo yahay in wax walba oo dhaca inaad sheegtaa muhiim ma aha kuma khasbanid wax walba oo dhaca inaad sheegto khaasatan haddii ay ummadda dhibaato u keenayaan isagoo ilaahayna baraya nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu inooga warramayaa suuratu taxriim وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير النبي عليه الصلاة والسلام حاسسكي سبيت كبدا أي ور شيغي وركاسنا وحوها ور لبضوضا ونكدحية وركي بي حاسكي أبا خويدين أي شيكتي مركي أي شيكتي nabiga ilaahay ayaa u waramay nabiga calayhi salaatu wasalaam wixii ay tiri oo dhan ma wada sheegin isagoo og ilaahay u waramay in yar uunbu warkii ay sheegtay in yar uunbu ka tusiyay inay warkii sheegtay carafa bacdahu wa arada an bacdin waa talmiix waxna waa tusiyay maxay Soomaalidu tiraahdaa hadalka waa sheegaysaa waana shareeraysaa waxna waa tusiyay wixii badnaana waa ka aamusay waxaan uga jeedaa ayadaasi waxay nagu boorinaysaa oo wariyayaasha leedahay wax walbo aad maqashaan inaad sheegtaan muhiim maaha haddii ummadda aanay dani ugu jirin waxa aan oran lahaa oo qodobada ugu dambeeya mid ka mid aan oran lahaa waa inay si mug leh u soo bandhigaan baahiyaha deegaankooda ka jira wax la rabaa in xoogga la saaro baahida ka jirta xilliga innaga waxaan nahay dad muslima marka ka duulayno islaamnimadeena waxayna baraysaa nabi walbo ilaahay soo diray inuu xooga saarayay mushkilada dadka haysata in la tacaalo innaga marka islaamnimadeena wixii marka dib ku ah ama qodobadii aan sheegnay ee haybsooceena dib ku ah in ay warbaahintu xooga saarto waa daruuri tusaale ahaan maanta dhibaatada ugu badan ee Soomaaliya haysata waxa kamid ah khaasatan kuwa soo cusboonaaday kuwa hore kuwa soo cusboonaaday wax kamid ah maandooriyaha xaashishadii baa soo galaysa khamrigii baa soo galaya dhalinyaradii baa aad u isticmaalaysa waa arrin u baahan in xoogga la saaro oo bulshada laga wacyigeliyo oo warbaahintu ay u samayso waqtiyo iyadoo u adeegsanaysa sida toosan ee looga hortagi karo haddii ay tahay khamri la qabtay oo la gubaayo haddii ay tahay xumaantiisa laga warramaayo haddii ay tahay saamaynta ay bulshada ku leedahay iyo dibdhaca xanuunada uu keeno iyadoo dhinacyo badan laga eegayo mar dhinaca caafimaadka oo dhakhaatiirtii lagala kaashanayo mar dhinaca maxay tahay bulshada iyo saamayntu ku yeelanayo mar dhinaca diinta waa inay waxyaabaha xoogga saarto ugu dambeyn waxaan ku soo gunaanadayaa warbaahintu deegaankeeda iyada ayaa wax weyn oo wanaagsan ka dhigi karta wax liitana ka dhigi karta Soomaalidii hore waxay oran jireen reerna curadkooda ka hor mana hodmo mana deego curadku marka waa ka reerka hodontinimada u keenaya ama caydnimada u keenaya hadda warbaahinta waxay tahay marka curadkii waxaan leenahay waa inay ka shaqeeyaan deegaankooda waxyaabaha horumarin kara masalan markaan baran baan joognaa waxa arkaysaa ninbaa Facebook wuxuu doonayaa inuu soo dhigo magaalada baran waxa la rabaa sawirka aad ka bixinaysaa inuu noqdo sawir qurux badan haddaad meelaha ugu liita magaalada intaad sawirto aad tiraahdo tani waa baran dad badan oo rabay inay wax ka qabsadaan baa ka cararaya haddaad qashinkeeda duubto haddaad catawgeeda iyo calaacalkeeda duubto waa waxaasi ma aha wax habboon wax la rabaa in waxyaabaha wanaagsan laga sheekeeyo wixii kaleetana hoos loo sheego nin odaya baa wuxuu aaday Malaysia dabadeetana wuxuu la kulmay arday badan oo deegaanka ah ardaydii buu markaa wuxuu uga warramay ardaydii wanaagsanayd buu si weyn uga warramay dabadeetana nin baa wuxuu weydiiyay hebel ka waran hebel aabihiisa uga warramay buu yiri hebel aabihiisa uga warramay يعني uma baahnayn dadka loo sheegay isaga waxa xaaladiisa wixii u baahnayd inaan hoos isugu sheegno ee Soomaalidu oran jirtay dhudhuma jeel jira kor hoos baa loo dhaqaa
in dadka loo sheego ma ah Soomaalidu waxay talo tiraahdaa cadka feeraha ninkii doonaya inuu wanaajiyana jinaadku muujiya ninkii kharibayaana doonaya inuu maaragtay xumeeyaana dhinaca feeruhu muujiya marka warbaahinta deegaanka waxa laga rabaa waxyaabaha wanaagsan inay gudbiyaan waxyaabaha dhibta ku keenaya ama nacsiinaya magaaladan ummadda nacsiinaya ama bulshada nacsiinaya waa inay yareeyaan oo ay iska ilaaliyaan aad iyo aad baad mahadsantihiin oo jazakumullahu khayr بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على محمد خير الأنبياء والمرسلين وبعد marka ugu horeysa ilaahay baa mahad iskale kulankan isugu qaaya keenay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo maxamed sayid faarax iyo macadka hadaf oo soo qaban qaabiyay kadibna waxaan rabaa inaan u mahad celiyo akhyaarta oo qaadiga ugu horeeya oo baran joogta iyo halkan aan uga jeedo saaxiibaday علي حاجي iyo cabdiraxmaan cabdirisaaq labadaba iyo burhaan baan filayaa waa ku jira iyo dhammaan akhyaarta kale oo daawanaysa dhamaantiin aad baa u mahadsantihiin waan fursadan la siiyayna waan idinka mahad celinayaa wax yar oo kooban oo ku saabsan hadii aad sida aad sheegtay maxaa la yiraahdaa doorka ama kaalinta warbaahinta maxaa la yiraahdaa jihaynta bulshada waa ogtahay maxaa la yiraahdaa maraaxil kala duwan bay soo martay warbaahinta dalkaani heerar kala duwan ayay joogtay bari baa radio muqdisho kaliya dadkan wuxuu sheegi jiray iyo maxaa la radio hargeysa kaliya ay jireen heesihii kacaanka iyo gubaabadii iyo kaliya iyo maxaa la yiraahdaa jaalle ka socon jirtay burburkii kadibna dee waad ogeydeen oo idaacaduhu inay xogaa dhowr idaacadood ay jirtay kadibna ganacsato ayaa ismaal gelisay oo wuxuun bilow ataagtay kadibna waxaan galnay casrigii internetka wixii ka dambeeyay 2004 ka dambeysay iyo in wax la qoro oo maxaa saxaafada elektarooniga ay soo baxdo kadibna dee waatan hadda meel kasta booming noqotay oo wax walba waxa weey la soo qoray dadka dhan bay waxa weey wada wariyaal ay wada noqdeen qof walba mobilka haysto internetka access loo wada leeyahay heerarka kala duwan ay soo martay saxaafada guud ahaan marka la yiraahdo doorar kala waxa weey badan ay leedahay caawa doorkan ku saabsan aan ka hadlayno bulshada in ay maxaa la yiraahdaa jihayso oo ay sheegto wax u sheegto oo ay jeediso waxa doorateen mowduuca siyaasadda siyaasaddu iyada Soomaaliya siyaasadeeda guud ahaan iyo siyaasadaheena kala baad noqoto maamulada iyada ama jiha lahayn oo meel loo socdo oo joogta oo maxaa la yiraahdaa jaan qaadi karo aan jirin hadda maalin qofkii u haya hogaanka uu marba meel u jeediyo waxaan aaminsanahay anigu waxaan filayaa 12 sano 13 sano ugu dambeysay 2008 laga soo bilaabo ilaa hadda warbaahintan heerarka kala duwaysay maxaa la yiraahdaa guud ahaan Soomaaliya iyo gaar ahaan Puntland waan taagnaa oo waan la socday way dadaalayaan warbaahinta iyo saxafiyiinta waxa way ka shaqeysa gaabis waa jira dhinacyo badan laakiin karaankooda inta kor ay isku soo qaadayaan way dadaalayaan dadkii bay rabaan fariinta inay gaarsiiyaan siyaabo kala duwan waa ay jiraan waxyaabo caqabada oo ku geedaaman hadii noqon lahayd mid dhaqaale hadii noqon lahayd mid maxaa la yiraahdaa xirfadii oo aan gaarsiisneen heerkii loogu talagalay oo wixii waxa weeye maxaa la yiraahdaa duruufo adag oo dalkan ka jira laakiin intii karaankooda dawlad dhiska oo ay ka qayb qaataan xoojinta maxaa la yiraahdaa xasiloonida dalka iyo ka qayb qaadashada amniga iyo wixii horumar soo siyaada waxyaabo looga baahnaa baa jira oo aysan sameyn sida soo saarida barnaamijyadan la yiraahdo maxaa la yiraahdaa baaritaanka iyo dabagalka ama waxa loo yaqaan investigative journalism taasi oo aan u aanaynin anagu guud ahaan halkan markaan xafiiska aan joogno sabab inay u tahay xogtii aan la helin waxaan jirin xogtii qofkii maanta dabca inuu sameeyo barnaamij dabagala ama baaritaan oo wuxuun xooga ku saarayo maxaa la yiraahdaa booliska waxbarashada wasaarad maaliyadeed meel maxaa la yiraahdaa xarun caafimaad xogtii baan ka xiran albaabkii baan lagu furayn kadibna wixii waa ka diyajabaysaa waxaad laga yaabaa inaad iska doorbidado badankoodba hadda sida ay sheekadu tahay in qaadiguna sida uu sheegay wararka maalinlaha in la dhiilgarayo oo maxaa la dadka loo soo gudbiyo xooga la saaray oo meesha ay ka baxdo in la sameeyo barnaamijyo macno leh bulshada waxtar u leh wax lagu saxayo dhaliil lagu soo jeedinayo waliba maxaa la yiraahdaa waxaan af carabiga lagu yaqaan waxa weeye loogu yeero waxaan la yiraahdaa naqd banaa maxaa la yiraahdaa iyadoo laga rabo inay wax
aan dadka lagu ceebeenayn laakiin laga rabo ama ujeedku yahay in wax lagu hagaajiyo taas baa sababtay marka in maxaa la yiraahdaa aan informationkaas la helin waan u gudbinay qolyahan maamulka ama dawladda joogta xeerkana waxaa noogu qoran xeerka warbaahinta Puntland oo 2016 December 28 wax ka bedelkiisa la ansixiyay in qodobka saddexaad faqradiisa 7 waan filayaa inay tahay waxaan la yiraahdo access to information oo ah xaqa helidda xogta haddii waan aaminsanahay haddii aanu helno xeerkaas ama aktigaasi noo meel mariyo inay warbaahintu soo gudbin lahayd barnaamijyo macno leh bulshadana waxa way qiimo ugu fadhiya loona furi lahaa xarumaha dadweynaha iyo xarumaha gaarka loo leeyahayba way jirtaa qaybo kamid ah warbaahinta hadda inay si isxilqaamaan waxaa la yiraahdaa soo gudbiyaan wararka dadka taabanaya noloshooda maanta ugu dambeysay waxaan galabta maqribka intaan la gaarin aan dhageysanayay sicirka maxaa la qolo soo gudbinaysay aan daawaday actually sicirka qutul daruuriga waxyaabaha boosaaso maxaa la yiraahdaa kor waxa way sarka u kac laga dareemayo waxyaabaha dadka taabanaya noloshooda waxay meelaha waxa way mushkiladuhu ay ka jiraan cidda mas'uulka ka ah in la aado oo la bartilmaameysado oo lala xisaabtamo dadweynahana loo soo gudbiyo waa arrin wanaagsan karaankoodana waa ay wadaan oo ay ku dadaalaan inkastoo aysan joogin meesha loogu baahnayd waxayna oo dhan baa waxay iska yihiin maxaa la yiraahdaa bilow dawladnimadii waxa way dib u dhiskeedii baan hadda waxa way asaaskii baa la wadaa koboc baa jira oo kor loo soo kacayo taas tallaabadaas kor loo qaadayo meediaduna waxa moodaa ama warbaahintu guud ahaan inay sida waxa way loo tallaabsanayo iyaduna waxa way horay maxaa la yiraahdaa kor u soo qaadayso waa ay socdaan dadaaladu ma yara sare loogu qaadayo aqoonta xirfadda iyo waxa la yiraahdaa warbaahinta ama hawlwadanada ka shaqeeya sidaas si la midana iyagu waxa moodaa waayadan dambe calaantii intii laga badshay in iyagu naftirkooda wax isbarayaan xirfadooda horumarinayaan waxaa jirta dad maxaa la yiraahdaa abaabulay oo maxaa la yiraahdaa wax bartay kulliyado kala duwan takhasusyo kala duwan waxaasna uga guud leh in maxaa la yiraahdaa ay shaqadooda ku horumarsiyaan waxyaabaha aanu hadda guud ahaan ka shaqeyno waxaa kamid ah aanu bilownay 2020 bilowgiisii in la helo wariye wuxuu leeyahay maxaa la yiraahdaa mawduuc ikhtisaas uusan noqon sheekh kull maanta suuqa taagan bari waxa way maxkamadda taagan bari dambe baarlamaanka jooga wax dhan ka wada waran wax walba yaqaan kiyaab ingiriis ba Soomaalidu tiraahdaa waxa way markii qofku uu helo aqoontii maxaa la yiraahdaa ku fuleed uu majaal uu xoog saaro wuxuu noqonayaa mukhtas fi majaal kida oo kida majaalkaas loogu imaanayaa uu shalay ka soo shaqeeyay oo bartay baarlamaankan ku bilownay Puntland xeerarkiisa habdhismeedkiisa sida uu u shaqeeyo dad baan waxa la yiraahdaa sodomeeyo gaaray oo laba dufcadood kala 2020 qof baan ku bilownay oo aan ka shaqeynay iyo maxkamadaha labadaas aan hadda tan bilownay in qof la helo maxkamaduusan wariyuhu iska tagin oo la helo dad u qaabilsan courtska kaliya inay ka soo waramaan courts waxa way reporting ka qaata dan waxay garanayaan qaab dhismeedka dastuurka sharciga xeerarka sida looga shaqeeyo sida uu maxaa la yiraahdaa looga soo waramo waxa sahlanaanaysa marka qofkii mutalaqiga ahaa oo risaalada ay gaareysay ama maxaa la yiraahdaa dhageystaha ahaa ama daawadaha ahaa ama akhristaha ahaa in uu si waafiya qofkaan uga waramo laakiin marka qof aan aqoon waxaan u lahayn maanta kaamirada mikrofon u qaato maxkamadda dhex istaago meeshii uu ku dhex wareerayaa wuxuu soo gudbiyay iska daayay wixii meesha yaalay waxa la yiraahdaa uu khaldaya waxaan rabnaa marka in dadaaladaas ay sii socdaan waan wadayna hadii rabbi idmo waxyaabaha marka guud ahaan ku saabsan maxaa la yiraahdaa in dadka la jiheeyo wax loo sheego si fiican bay maxaa la yiraahdaa u socdaan kaalin wanaagsan bay ka qaateen madda waxyaabaha lagu amaanay waxa kamid ah aan rabaa inaan maxaa la yiraahdaa ku bogaadiyo qaalintii ay ka qaateen hanaankan xisbiyada badan iyo doorashadii dhawaan ka dhacday intii soo gudbinta ahayd way jirtaa gaabis inuu ka jiro dhanka wacyigelinta oo siyaabo kala duwan maxaa la yiraahdaa dhinacyo kala duwan ay khusayso arrintaasi gaabiskaas anaguna aan qayb ka ahayn qaladkaasi waanu qaadanay wuuna ka muuqday actually maxaa la yiraahdaa doorashadii waxaa dhacay dadkii codeynayay in badan oo kamid ah warqadii maba yaqaaninba meel lagu codeeyo oo warqadii bay ka baxeen taas waxay ku tusaysaa marka inay u gaarsiisnayn maxaa la yiraahdaa wacyigelintu heerka loogu baahnaa dadkii
kaararka qaatayna aysan fursadaas aysan helin waxyaabahan gadaal ka sixi doona ay ka mid tahay laakiin in bulshada la wacyigeliyo sare loo qaado wacyigeeda amnigeeda xoojintiisa iyo xasiloonidooda maxaa la yiraahdaa waxbaridooda la socodsiinta nolol maalmeedka iyo wararka waxa weeye ku xeeran intaasba waxa weeye si fiican bay maxaa la yiraahdaa u socdaan wixiina heerka aan maanta joogno iyo heerka dunidu ay joogto isku mid maaha muwaakaba wax la yiraahdo baan maxaa la yiraahdaa la wadaayo de in lala jaan qaado oo koray loo sii wado iyadoo maxaa la yiraahdaa la fiirinayo sida uu sheekhu sheegay de mujtamac islaam aan nahay sida warbaahinta dunida u shaqeyso waxyaabo badan baa maxaa la yiraahdaa oo ku celinaya oo diintu ay ka mid tahay dhaqanka Soomaalidu ay ka mid tahay waxyaabahaas waxa way ku celinaya intooda badan wanaaga ay qaabilsan yihiin in yar oo maxaa la yiraahdaa waa ay jirtaa ay khaladaad ka dhaco kuwa aysan qasti ka ahayn waxa weeye waa suuragal iyo kuwa ay ku talagal ku tahay waxyaabaha dhibaatada u keenay oo waayadan waxa la yiraahdaa anaga naftirkeena culeyskana saaray waxaan la yiraahdo social media-da waaye waxa la yiraahdaa barahan xiriirka bulshada oo dadkii oo dhan ka wada dhigtay wada saxafi huwiyadii saxafigana meesha ay ku luntay waxa weeye meesha uga baxday alxamdulillah rabbil alamin laba bari ka hor waxaan filayaa sabtidii bay ahayd maanta maanta isniin way sabtidii laba bari ka hor waxaan halkan ku daahfurnay guddiga sare ee warbaahinta Puntland oo shaqooyinkiisa saddexda shaqo uu qabanayo ay koob ka tahay inuu bixiyo accreditation-ka ama waxa weeye aqoonsiinta saxafiga yaa saxafi ah iyaan ahaynba oo maxaa la yiraahdaa guddigaas uu qaabilsan yahay xiriirkan bulshada baraha xiriirka bulshadu marna waxa weeye wanaag bay keeneen oo dadkii bay indhaha u kala fureen oo dadkii waxay bareen inay hadli karaan soo gudbin karaan cabashadooda keeni karaan mas'uulkii laga waayo xafiiskiisa mas'uulkii telefonkiisa qaban waayo mas'uulkii meel loo soo maray laga waayo si yaroo fudud baa waxa weeye loogu soo qoraa halkaas wixiisa waxyaabo badan oo maxaa la yiraahdaa oo khaldanaa oo la soo gudbiyay ayaa isla markiiba la sax sheekh haday wuxuu yiri qashin hadaa meel ku aragtiyaan la sheegay sheekh waxa weeye qashinka waa la sheegayaa waxa weeye waan la soo gudbinayaa si jidka looga qaado waxa weeye meesha loo nadiifiyo wayna dhacday runtii in meel qashinka buuxo la soo sawiray oo la yiri meeshaan fiiri maxay ka qabataa dawladda hoose iyo maamulku maxay ka qabtaan meesha joogay oo subaxii dambe iyadoo maxaa la yiraahdaa nadiif soo baxday oo la istaag hadaan tooshka lagu ifin oo la soo sawirin oo aan la dhihin waxaan yaa mas'uuliyaddan iskale qashinkaas meesha soo caawo inuu halkaan fadhino sidoo meesha soo olaan lahaa cidda marka waxaa dhacday in maxaa la yiraahdaa mararka qaarkood cashuuro ziyada dad la soo saaray oo qanacsatadu ay diiday ama godood la sameeyay oo ama darawalaha ahaadeen ama waxa weeye ganacsigeeda yar dadka iskale arintaas tooshka lagu ifiyo media-da gaartay naftirkeedu inay sababtay in cashuurihii waxa weeye dib maxaa la yiraahdaa ay go'aankaas uga laabtaan wada hadal la furo la qanciyo wax maxaa la yiraahdaa dhexdhexaadna ay waxa weeye ku heshiiyaan oo waxaan maxaa la yiraahdaa xal labada dhinacba maxaa la yiraahdaa raali gelinaya waa ay jirtaa saameeno badan oo wanaagsan ay leeyihiin oo saas oo kale ay sameysay social media laakiin dhanka kalena waxa jirta waxay sameeyeen macnihii ayay ka qaadeen media runtii warbaahintii traditionalka ahayd ama waxa la yiraahdaa saxaafad taqliidiya waxa la dhihi jiray oo TV-gi iyo asaasku ka yimid marba waxba si nabad guuraya qoraalkii baa meesha ka baxay saxaafadii la akhrisan jiray Puntland dhanba hal journal ba hadda ka soo baxa oo Professor Maxamed Khaliif Barre oo waxa weeye kuwooda laba xiniyood kuwooda baa ka soo haray qoraaladii journaladii oo dhan baan waxa la yiraahdaa in page-kii baa meesha ka sii baxaya oo de page badan bay Puntland lahayn jirtay idaacadihii dadku waxbay dhageystaan oo waqti badan baa la gelin jiray idaacadihii baa naftirkoodu dhageysigoodu yaraanaya waxa la isku soo wada guuray oo la soo wada aaday Facebook-kii iyo Twitter-kii iyo Instagram-kii iyo baa la soo wada aaday telefishinadii iyo xarumihii warbaahintu idaacad iyo telefishin iyo journal iyo website waxay ku khasbanaadeen inay soo wareegaan horumarkan cusub ay maxaa la yiraahdaa la jaan qaadaan si aysan u khasaarin dadkii dhageystayaasha ama audience-goodii taas marka waxayna tartan la galeen dadkii caadiga qofkii kaamirada watay oo isagu access-ka u lahaa wax walba shil baa meesha ka dhacay qof taagan baa sawiraya soo maxaa la yiraahdaa Kenya shilki maxaa ku kala duwantii waxa kaliya marka kala saari kara waxay tahay in qofkan jooga xarunta warbaahineed oo uu soo celiyo kana shaqeeyo haybadii iyo shaqadii maxaa la yiraahdaa warbaahintu lahay sidii saxdeedna u shaqeeyo lagana gudbo waxa kan waxyaabahan wararkan maxaa la yiraahdaa kooban oo halkaas waxa ka dhacayna
falanqayn la socon khabiir aan la wareysanayn cid maxaa la yiraahdaa saameynta ka dhalan karta aan la odorosi karin oo war qaleyl ah madalaha way nagu yar yihiin oo maxaa la yiraahdaa lagu soo gudbiyo wax haday noqon lahayd dadkeena Soomaaliga oo waxa way dabcigeena badawiga ah oo aan taqabulayn ra'yiga kale dadku doodaha la qabtaa waa la wada hadlaa waxba ka soo baxa aad buu u yar yahay dhaliisho dulqaadna umayna lihin guud ahaan haday noqon lahayd dadkeena caadiga ah haday noqon lahayd maamulka labadaba in wax la isku sheego taasaan waxa meesha ka saartay marka in la qabto munaadarooyin ama maxaa la yiraahdaa debateyo macna leh oo wax lagu saxayo laguna maxaa la yiraahdaa la isku aragti waxa weeye aragti wadaag madalaha aragti waxa weeye aragti wadaaga ah iyada naftirkeedu dhankaas maxaa la yiraahdaa gaabis baa ka jira guud ahaan marka challenge-gaas ku saabsan dhanka baraha bulshada ayaa hadda media-da haysta oo struggle-kaasi ku jirtaayo waxay rabtaa inay soo ceshato makaanadeedii dadaalna waa ay waxa weeye wadaan kumana yara guud ahaanna waad moodaa inay dadka ka go'an yihiin dadka ka shaqeeya oo waan ka warhayaa dalka oo dhan baran un baa ay dhiman laakiin inta kale waan tagay oo maxaa la yiraahdaa magaalooyinkan Puntland oo waxaa la yiraahdaa badankeedu waan la kulmay qaybtoodna way nooga yimaadaan baran inta hadda idin la joogta oo shirarka ay nagala soo qayb galaan galo waan marka la sheekeysatid waa ay ka go'an tahay inay ka qayb qaataan horumarka dadkooda ay wax u soo gudbiyaan isla markaasna ay wuxuun maxaa la yiraahdaa isbedel ah ay la yimaadaan dadka wacyigoodan kor loo waxa weeye loo qaado dadka naftirkoodu heerkii ma joogaan wararka qaarkood fariimihii qofka sii deynaya qofka maxaa la yiraahdaa mursal iyo mutalaqi qofka diraya iyo kan helaya fariinta isku heerkii ma joogaan oo waxaan jirin waxyaabaha dhibaatada naga haysta waxa kamid ah waxaan loo yaqaano target audience ama cidda la bartilmaameedsanayo oo fariinta loo diray jumhuur mustaadaf cidda fariintu ay ku socoto waxa sarfeeyo badan kama waxa weeye qabano oo dhalisheedu ma aha markasta inaan isleenahay waa saxanahay aan leenahay laakiin waxyaabaha gaabiska anaga naftirkeega media hadda joogta ay naga haysto waxa kamid ah in aanu sameyn diraasad lagu sameyn aan lala socon fariinta cidda maxaa la yiraahdaa ay ku socoto yaan la hadlaynaa dadkaas aan la hadlayno fi'aad cumrigooda muxuu yahay intee bay jiraan maxay aaminsan yihiin maxay jecel yihiin da'da intaas ilaa intaas maxaa dan u ah intaas iyo intaas maxay rabaan inay ogaadaan oo haday noqon lahayd deegaankooda haday noqon lahayd caalamka iyo haday noqon lahayd maxaa la yiraahdaa wixii qorshayaal oo dhinacyadooda ka socda intaba mar rabo inta ka badan inaan maxaa la yiraahdaa aan hadlo akhyaar badan baa safka ku jirta aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa runtii waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo in intii karaanka iyaga ah media-da Puntland hadeertan aanu ka shaqeyno sidii maxaa la yiraahdaa aan kor ugu qaadan lahayn wacyiga bulsho isla markaasna uga qayb qaadan lahayn dadaalada socda haday noqon lahayd horumarinta bulshada ama waxbarideeda iyo dawlad dhiska guud ahaan Soomaaliya oo qof walba oo dan ugu jirto in ay wadankan hagaago horumar waxa weeye uu gaaro horumarkaas soconaya oo inkastoo deesan xawaari iyo loo baahnaa oo sanahayn taagtaagsi iyo waxa weeye talaabo kooban ku socda taasna saxaafadu inay dhinaceeda ka sii socoto insha Allah ta'ala aan rajaynayno bari wanaagsan saxaafad maxaa la yiraahdaa kaalinteedii si buuxda uga qayb qaadanaysa la xisaabtamaysa maamulka dadka matalaysa aragtiyadii kala duwaneed maxaa la yiraahdaa bulshada soo gudbinaysa isla markaasna sare u qaadaysa wacyiga iyo aqoonta iyo garaadka bulshada ay wax u soo gudbinaysa aad iyo aad baa mahadsantihiin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام يا قاضيga Sheekh Abdulqaadir iyo gudoomiye Maxamed Daahir Cayn Sane saaxiibkay iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa Hadaf Center iyo maamulihiisaba Ustaad Maxamed Saciid fursadan iyo barnaamijkan iyo kulankan qiimaha badan ay soo abaabuleen طبعا ميدياها إعلامك يورباهنت انتبه هذا كيان دهنو أهمية أي ليهين يو سيدا نلاشينا أي وقيب قاتان إني شيب جريان وحا إنو شيء أساتذة يجوه الرئيسي هذا بنقول إننا يسيد قروح البدن يوصل باللجان كل ينت شيئين بنقول فلان واحد بدن قدر معايو لكن وحينو وداكسونا هي إن ميديوه وأوده هو وين وأفرتع وكمدي هاي إسبدل كسمية مربع لقى أود اللبات مربع لرنجرس أود الصوت الرابعة أود أفراد
laakiin haddeer waxaan isleeyahay awoodda ugu muhiimsan oo haddaysan dowladii ama xukuumadii ama institution ama ganacsi uusan haysan oo isticmaalin aysan isbeddel samayn karin meediyahu ama warbaahintu noocyo badan bay leedahay warbaahin siyaasi ah baa jira mid dhaqaale ku qota ma jira mid bulshada jirta laakiin Soomaaliya marka aan joogno waxaad moodaa in meediyahu uu isku qasmay isla markaasna qof walba uu dowladgiisa u darsado adduunku waxaad arkaysaa qof kaliya oo ku takhasusay warbaahinta khusaysa marketingka iyo suuq-geynta oo wax kale aan gelin midba wuxuu ku takhasusay al-i'laam siyaasi wixii political media iyo platformska siyaasadeed ka hadla midba wuxuu ku takhasusay al-i'laam ijtimaaci wixii social mass media uu ka hadla laakiin annaga waxaad moodaa inaysan wax takhasusaada iyo wax kala ablaableeda aysan jirin oo ay waxaynu isku furan yihiin dadaalo badan baa runtii saxaafadda iyo maxamed daahir gudoomiyuhu ay wadaan aad baan ugu mahadcelinayaa waana dareemi kartaa runtii isbedelada iyo sida ay u rabaan inay more professional uga dhigaan shaqadaas mar kasta oo iclaamku uu noqdo more professional ama wax xirafi ah oo mahani ana waxa runtii fudaanaysa in iclaamka uu noqdo iclaam muwajjaha dadkana jiheeya isla markaasna xog saxana dadka gaarsiiya dadkuna ay u noqoto marka meel ama miinis ay isticmaalaan oo saxa oo dadka iyaga ka baxsan ama madax ha noqoto ama cidii kale fariin ay gaarsiinayaan ha noqoto ay ku gaarsiin karaan anu waxaan isleeyahay sida khiyaarta igu horeysaba ay soo sheegeen dadka warbaahinta haddeer hoggaanka u haya ama saxafiyiinta loo yaqaano ama inta kale ee adeegsata xataa warbaahintan cusub ee social media hadda aadka ugu baahsanba mas'uuliyad weyn baa waxay ka saaran tahay in bulshadooda ay badbaadiyaan gaar ahaan bulsho fragile ah bulsho nugul oo burbur ku jirta isla markaana rabta inay ka soo kabato oo burburka ay ka baxdo mas'uuliyad weyn baa waxay ka saaran tahay inay bulshada ay wadada saxda ku hogaan ay ilaaliyaan akhlaaqdooda ay ilaaliyaan diintooda ay ilaaliyaan dhaqankooda ay ilaaliyaan muxuu ahaayay wacyiga samaysankiisa ay ilaaliyaan lil'asaf waxaa runtii aan isku wada raacsanahay maanta khatarta ugu weyn oo dhallinyaradeenna iyo ubadkeenna dul saaran waxay tahay oo sida mindida marka neefka la qalayo kale marka loo dul saaray u dul saaran tahay warbaahinta casriga ah ama iclaam al-jadiid waxa loo yaqaano iyo sida uusan u jihaysnayn oo isla markaasna ay ku badan tahay waxyaabaha shaayicooyinka ah waxyaabaha dhaqan xumada doorinaya isla markaasna aad moodidba dadka mas'uuliyiinta ah ama dadka kala duwan ama dawladda ha noqoto ama bulshada qaybadeeda kala duwan ha noqotee in faraha looga qaaday dhalinyaro badan inay bulshada marka siday doonaan ay ka yeelaan runtii arrintaas waxaan xoojinayaa sida ustaad maxamed daahir uu sheegay iyo sheekh cabdiqaadir ka horeeyay in dhalinyarada oo iyagu haddeer muxuu ahaay had iyo jeer initiative-ka iyo hal abuurada social media iskale in la jiheeyo isla markaasna wacyiga bulshada aysan ku ciyaarin oo wacyiga bulshada si saxa loo dhiso leanno waxa aan samaynayno oo warbaahinta aan marinayno waa wax guryaheenna iyo caruurteenna iyo nafteenna kusoo noqonaya waxay oran jireen waxay dhahaan beenta ku celceli ilaa ay run noqoto waxaa la yidhi nin masri ah ayaa wuxuu lahaan jiray gaari kuwa nooca duuga ah marka nin saaxiibkiisa u tagayo wuxuu ku yidhi warniyahow gaarigan waa igu duugoobay inaan iska xaraashaan rabay maxaan sameeyay markaasuu wuxuu yidhi dhib male marsheeda ka qorbiir haddaa marsheeda isaga qortid oo meel kasta uu maro waa la iibsanayaa ayaantii dambe marka ninkii saaxiibkiisa ahaa oo taladaas siiyey baa ninkii uu kusoo laabtay wuxuu war gaarigii ma iibisay warniyu gaarigii ma iibin biyo marsheedis buu noqday bisee u iibiyaa marka waxay ka wadaan beenta ilaa aad ku celiso waana istiraatiijiyad naasiyiintu ay isticmaali jireen marka wax badan oo runtii dhaqan xumo ah oo ku baahay bulshadeenna ubadkeenna soo koraya iyo dhalinyarada iyo cid walba waxay u malaynaysaa marka wax iska caadi ah oo kadibna ay noqoto marka wax bulshada ay la burburto runtii bulshada marka ay horumarayso maraaxil bay martaa sida ibnu khaldun uu qabo marxaladda ugu muhiimsan ee bulsho markay istaagayso markay qiyamka iyo valueska iyo mabaadi'da iyo diinta ay ku istaagayso markaas waa marka karbiga kor u socdo
oo uu kor aadahayo oo marka ay bulshada dhismayso marka ay dhisantana waa marxaladda ku haynta qaardaas iyo qiyamkaas iyo mabaadi'daas baa la rabaa dowladda inay ku hayso ama cidda maamulka haysa ama mujtamaca culimadiisa iyo mufakiriintiisa marxaladda marka ay burburayso marka xadaarad ama dowlad ay burburayso ama mujtamac uu burburayo waa marka inxidaadka uu ku dhaco oo qarniga hoosta u aado waxa u sabab ah waa marka akhlaaqda iyo wacyiga bulshadaasi ay hoosayso oo ay dhulka gasho marka waxaan si marka maadaama aynu nahay mujtamac soo koraya oo burbur ka soo baxaya waxa ugu muhiimsan waxa weeye meediyaha iyo iclaamkaan adeegsanayno inuu noqdo midkii bulshadan wacyigeeda dhisi lahaa oo dhalinyarada wacyigooda siyaasiga dhisi lahaa oo waxa weeye dhalinyarada ku tawjiihin lahaa in laga fogeeyo corruptionka in laga fogeeyo hoggaan xumada in laga fogeeyo qabyaaladda in laga fogeeyo maamul xumada waxaasoo dhanna waxa weeye meesha fariinta loo marinaya waa warbaahinta weeye dadka marka warbaahinta gacanta ku haya waxaan ku boorinayaa inay ilaahay uga baqaan bulshada waxaan ku boorinayaa iyaga naftooda in ay yacni xirfadda iyo mihnada gacanta ku hayaan inay ka dhigaan more professional mid aqoon ku qotanta oo wariyaashoo dhan waxa weeye lagu xujiyo qofka wariyaha ahi marka uu qaadanayo lessonka inuu markay ugu yaraato diblom xirifi ah oo media ama mass media uu bartay ama teknolojiyadda casriga uu bartay ama IT uu bartay in lagu xujiyo oo la soo celiyo mihnadii qoraalka ahayd oo hadalkan badan oo la daldalayo oo warbaahinta la isu marinayo inta la yareeyo in waxa weeye qoraal ka xooga la saaro leana qoraalka wuxuu yahay waxa asalka oo haray billahi calaykum suurtagal ma tahay bulshadan oo lagu qiyaasayo 3.9 milyan ama 4 bilyan bay iska dheh oo dhulka inta la eg ku nool in hal journal uu ka soo baxo oo runtii Professor Khaliif uu soo saaro inta kana marka bulshada aysan lahayn waxay akhriso waxaad dareemi kartaa marka khatarta soo wajahan iyo minguurka ku dhacaya sooyaalkeeni iyo taariikhdeeni iyo suugaanteeni iyo dhaqankeeni marka waxaan runtii farayaa oo aan soo jeedin lahaa aan kula talinayaa saaxiibaday warbaahinta oo saaxiibkay Maxamed Daahir Caawa uu gudoomiyahana la joogo in arintaas qoraalka in la xoojiyo oo la isla kaashado ilaa uu xataa electronic ahaado oo PDF ahaan uu ku soo baxo laakiin waxaan rabaa oo aan xoojinayaa in warbaahintu ay more xoog la saaro midda qoraalka arinta kale waxay tahay in waxa weeye social mediahan runtii faraha ka baxay in khatartiisa aynu wada ogsoonaano oo isla markaasna ay jirto bara bulsho oo dadka valueska iyo qiyamka iyo akhlaaqda iyo diinta ay leeyihiin la marsiiyo oo waxa weeye dadka muxuu la helo dad wacyigoodu dhisan yahay isla markaasna ka hadli kara qadiyadaha siyaasadeed uga hadli karo qaab xirfadaysan oo aan ahayn qaabkan qabiilaysan oo ah reebel baa waxa iskale iyo kursigaas reebel waxaan aan ahayn oo laakiin arrimo siyaasadeed oo turxaan baxsan oo muxuu ahay wacyiga bulshada dhisaya ka qayb qaadanaya muxuu ahay dadkani in beri ka maalin ay yaqaanaan siday u dooran lahaayeen hoggaan fiican iyo future fiican say u samaysan lahaayeen waxaan kaloo rabnaa inaan helno warbaahin iyada xoogga saarta arrimaha bulshada oo waxa ugu badan oo waxa is leeyahay gaabka uu ka jiro isla markaana gabi ahaanba ka maqan social media iyo warbaahintoo dhan iyo idaacadii TV-dii arrimaha bulshada runtii aad u badan yihiin qadaayaad badan oo bulshada jira kuwii qoyskaa jira kuwii waxa jira muxuu ahaayay dhex yaalay muxuu ahaa sidii qabaaisha iyo dadka muxuu ahaayay walaalaha ee Soomaalida sida la isugu hayn lahaa kaysas badan waxaa jira oo dhacaya oo u baahan dadka in looga digo waxaa soo kordhay waxyaabo badan oo phenomenon ah oo muxuu ahaayay aad arkaysaan maalmaha social media ku soo kordhay dhalinyarada oo mararka qaarkood xataa naftooda khatar gelinaysa marka ma dharaba inaan ku dheeraado mas'uuliyad badan baa inaga saaran social media hadday waxaan ka wadaa warbaahinta hadday noqon lahayd social media hadday noqon lahayd TV hadday noqon lahayd midda qoraal iyo hadday noqon lahayd midda la akhriyo intaba mas'uuliyad baa ina saaran mas'uuliyadaasna kaliya ma saarna warbaahinta iyo dadka hadda xirfadaas ku suman laakiin waxay saaran tahay cid walba oo adeegsan karta ama fariin gudbin karta laana hadda inaan iska eedayno warbaahinta kaliya ma ahane maanta hadda qof walba waa wariye marka qof walba waxaa saaran mas'uuliyadda saaran waxa weeye wariyaha ayaa isagana sidoo kale saaran waxa uu sheegayo inuu ka fiirsado oo la iska ilaaliyo waxyaabaha rumorska iyo shaacooyinka oo aad u batay oo la xakamayn karin markaasna waxaan heli karnaa marka bulsho wacyi leh bulsho isku duuban bulsho dooran karta hoggaan saxa bulsho marka ka fakari karta aayaha mustaqbalka intaasaan oran lahaa aad baan ugu mahadcelinayaa akhyaartii runtii sida quruxda badan ay u bandhigeen hadaf centerna markale u mahadcelinayaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ama bacdu ilaahay ma mahad iskale subxaana wa tacaala goobtan isugu keenay
innagoo ka tashanayna wax ummadda maslaxadeeda ay ku jirto danteeda adduun iyo mid aakharaba lagu horumarinayo. dhammaan dadka isugu yimid halkan iyo nafteeda waxaan u dardaarmayaa alla cabsidiisa. yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha xaqa tuqaatih walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun. bulshada iyo xidhiidhka ka dhexeeya warbaahinta sidii la isugu xidhi lahaa runtii waa wax qiimo badan. dadkuna inay isku xirmaan oo istacaawunaan oo iskaalmaystaan waa wax ilaahayna amray subxaanahu watacaala. ilaahay baa ina yidhi subxaana watacaala kitaabkiisa inoogu sheegay watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan. inay dadku midoobaan oo isku duumaan oo masaalixdooda ka shaqeeyaan oo ilaahay diintiisa si dhaba u wada haystaanna waa la isfaray. ilaahay baa ina faray wactasimuu bixabli illaahi jamiican. bulshadu marka sida isugu xirnaan lahayd wax wanaagsanna ooga wada shaqayn lahayd horta waa maqsad islaami ah oo qof walba looga baahan yahay inuu dhinaciisa qabto oo darafkiisa uu ka xoojiyo. warbaahinta markaan usoo noqdo, war marka la baahinayo oo la faafinayo ummad la gaadhsiinayo waa inuu yahay wax aan ummadaas warka ummadda lagu dhex baahinayo lagu dhex faafinayo wax ummadda jiritaankeeda wax u dhimaya waa inuusan ahayn. diinteeda waa inuusan wax u dhimaynin, dhaqankeeda wanaagsan waa inuusan wax u dhimaynin, akhlaaqiyaadkeeda waa inuusan wax u dhimaynin, horumarkeeda waa inuusan wax u dhimaynin, nabadgelyadeeda iyo waxqabsigeeda waa inuusan wax u dhimaynin, bal waa inuu wax tarayo. walidaalika waxaa la rabaa waxa ummadda lagu faafinayo waa inuusan noqonin wax diinta ka soo horjeeda, waa inuusan noqonin wax xaaraama, waa inuusan noqonin wax xun. haddii wax xun la faafiyo cadaab baa lagala kulmaya. إلهي وحليه سبحانه وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. كوة جعل إنا حمامتا كل أحفافته تدك مؤمنين تا عذاب درم بإلهي إليهم بوري مركب وين إسكا إلى لسوريو وحانا تقدبينيسو أدميدي يهم مرينيسو إنا إلهي وقع بسطه وإنو سنعين وح xun oo dadka akhlaaqdooda, diintooda, dhaqankooda, horumarkooda, jiritaankooda dhimaya oo wax u dhimaya waa inuusan ahayn. midka ay soo gaadho wixii xun waa inuu halkaa ku qabtaa, maaha inuu isaguna sii sheergareeyo, maaha inuu sii faafiyo, maaha inuu dad badan kusii dambaajiyo isaguna uu ku dambaabo. maanta social media wuxuu noqday meel qashin qub ah buu noqday oo cid walba waxay doonto ay iska soo dhigto, qashin walba la soo dhigo. waxaa la rabaa marka inaan ka bedelno meel nadiifa oo waxa wanaagsan lagu faafiyo, waxa xunna lagu radiyo, lagu celiyo, ummadda looga digo inuu noqdo. faafreeb waxa la yiraahdaa ee saxaafadu leedahay daa'iman waa in la helaa marka social media waa in faafreeb loo helaa. faafreebka marka wuxuu ka bilaabanayaa dadka wax soo gudbinaya waa inay akhlaaqiyan iyo caqiida ahaan waa inuu dhisan yihiin, diin ahaan waa inuu dhisan yihiin. iyaga marka wixii xun ummadii ka qabanay. wariyuhu waa inuu ilaahay ka cabsadaa, xarunta wariyuhu ka tirsan yahay waa inuu ilaahay ka cabsataa, qofka warka uu soo gaaro xun waa inuu ilaahay ka baqaa, waa inay dadkaas oo dhan ilaahay ka cabsadaan oo ummadda aan la fasaadin. waa inaad ogaataa wariyow waxa aad gudbinayso inta uu caalamka ku wareegahayo oo dhan hadduu wax xun yahay dembigeeda adigu kugu soconay, hadduu wax wanaagsan yahayna khayrkeeda adiga ayuu kuu soconay. ilaahay ka cabso subxaanahu watacaala, waad dhimanaysaa, qabri baa kaa dambeeya, waxa kaa haraya likulli nafsin bimaa kasabad rahiina. ilaahay wuxuu leeyahay naf walba waxa ay kasbato iyada ayaa maaragtay u xiran maalinta qiyaamada. waxaa la rabaa marka in aad waxa aad shaqaysanayso oo aad ka tagayso oo ummadan dhaxal ooga dhigayso inuu noqdo wax khayr ah, wax wanaagsan, wax horumara, wax midnimada ka shaqeynaya, wax horumarka bulshada ka shaqeynaya, wax nabadgelyada ka shaqeynaya. waa inuusan noqonin wax ummadan burinay. kayaankeeda iyo samayskeeda iyo jiritaankeeda iyo akhlaaqdeeda iyo diinteeda wax u dhimaya waa inuusan noqon. dhammaan waxa ina faran ilaahay aan ka cabsano subxaanahu wa tacaala, kitaabkiisana aan ku camal falno. baaraka allahu fiikum, jazaakum allahu khayr. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ku saabsan warbaahinta, dabcan ciwaanku waa warbaahinta iyo bulshada. ugu hore waxaan u mahad celinayaa akhyaarta ka soo qaybgalay. si gaara waxaa mahad mudan macadka daraasaadka iyo cilmi baarista ee hadaf oo runtii u taagan horumarinta bulshada. ciwaanka ah warbaahinta iyo bulshada
warbaahinta waxaan ogsoonahay inay ku shaqeeyaan xaalado kala duwan runtii xaaladaha kala duwan ay ku shaqeynayaan waa in lagu bogaadiyo laguna taageero soo jeedinteedu waxaa weeye warbaahintu inay noqdaan dhexdhexaad madax bannaani ay yeeshaan si hufan ay u shaqeeyaan waxaa jira warbaahinno gaara jira runtii wariyaal gaar ah oo mar walba u taagan horumarinta bulshada qaybaheeda kala duwan qaar baa furimaha dagaalka jooga oo halkaa mataqaanaa kusoo gudbinaya xogta iyo mataqaanaa dadaalka ay wadaan ciidamada qaranku sidoo kale waxaa jira wariyaal soo bandhigaya dadka baahiyahooda dadka danyarta ah ee baahiyaha gaarka qaba waxaa jira waqtigan oo kale ah warbaahin ama wariyaal soo bandhigaya fanka ama sugaanta qiimihiisa iyo in mataqaanaa uu yeesho kayd fankaas dib u soo nooleynaya dadkii ku wacyigelinaya bartaan fankooda qiimaha uu leeyahay runtii waa wariyaal bogaadin mudan inay kaalmaha buuxiyaan baldoonaya wariyaasha iyo warbaahintu waqti adag baa lagu jiraa oo kaliil ah roob la-aan ah biyo la-aan ah baal la-aan ah inay soo tabiyaan xaaladaha kala duwan ee ka jira gobolka iyo dalka si markaas dadkaas mataqaanaa u helaan gurmad inay ku dhiirigeliyaan bulshada inay caawiyaan dadka tabaalaysan ama qaxoontiga ah ama mataqaanaa reer guuraaga ah inay ku dhiirigeliyaan bulshada siday amniga wax u qaban lahaayeen horumarka wax u qaban lahaayeen marar badan waxaa soo laabanaya in dalkeena ay ka dhacaan abaaraha waxaa keenaya biyo la-aanta haddii biyaha meesha ka baxo baadku meesha ka baxaya waxa isku xidhan weeye abaartu waa shay dabiiciya oo mataqaanaa rabaaniya weeye balse dee waxaa la samayn karaa mataqaanaa waxaa la samayn karaa management waa la samayn karaa in kayl la sameeyo calaf la diyaarsado cunno la diyaarsado dee xoolihii lagu badbaadiyo haddii xoolihii badbaadaan dadku waa badbaadayaan marka warbaahinta ayaa laga rabaa in ganacsatada Soomaaliyeed fursadaha noocaas ay la wadaagaan dhiirigeliyaan in bulshadu mataqaanaa mar walba aana miidiyaha iyo gurmad iyo cabasho iyo mataqaanaa xaaladaha noocaas aysan taagnaan laakiin sidii looga bixi lahaa in warbaahintu ay ka sameeyaan xog iyo mataqaanaa cilmi baadhis aad u mahadsantiin salaamu calaykum warbaahintu waa habka ugu fudud oo bulshada wax loogu gudbin karo waana tiirka u dhaxaya maxay ahayd dawladda iyo bulshada waana codka bulshada waxay soo gudbisaa baahiyahooda cabashadooda sidoo kaleeto wacyigelintooda oo kaleeto bulshada Soomaalidu waxay tiraahdaa hadalna meel dhow ku dhacaa dhawaaqna meel dheer ku dhacaa waxa bulshada u gudbinaysaa inay wax waxtar leh oo maxay ahayd dadka anfacaya warbaahintu waxbayna dumisaa waxbayna dhistaa inay noqoto mid wax dhisto oo wax u soo kordhiso bulshada aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo kulan noocan oo kale oo looga hadlayo warbaahinta iyo bulshada xiriirka ka dhaxeeya runtii intii ugu muhiimsaneed waa laga hadlay wariynimaduna dee waa khibrad la barto ma aha yani qof kasta inuu iska soo dhex galo bulshadii uu yani u sheego waxaan loo baahnay